الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كانوا بهرين maamulka jaamacaadka iyo macallimiinta iyo ardadaba iyo dadweynaha kaleba oo mahadnaqaya ee waqtiga iska kooban ee darsiga lagu tala galay maanta wuxuu yahay huwiyatul muslim fi zaman al-awlama. qofka muslimka baadisoociisa ama aqoonsigiisa ama sumadiisa waqtigan cawlamadu globalization waqtiga kan dunidu isu furantay ee midka qura noqotay. erayga alhuwiya fi luga alcarabiya min huwa baa laga soo qaaday, waa masdar ama isim mansuub u ah ilaa huwa bay yidhaahdaan, waa masdar sanaaciya. waxaa looga dan leeyuun xaqiiqatu shay. في علم الفلسفة أنا الهوية وحي كنت المامان حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره. شيء ذات ديسة أما حقيقة ديسة أما قفك بني آدم كا وحقار كيالة مركا هوية ذا الشرحيان مرنا وحل الشرحة قف هوية دي وحل يسويديا قفك بني آدم كا محاضتك أنت كلك الصعة. مثلا waraaqan yaryar aqoonsigaynu sidana waxa loogu tala galay 7 bilyan ee dunida ku nool in laga dhex garto. 7 bilyan ee bini'aadamka ee dunida ku nool wax kula ID inaanay jirin, basamaadkaaga inuu wato, suulkaaga, saxeexaaga ama indhahaaga ama waxunaad kaga soocantay aadanaha intiisa kale. marka wuxuu sheegayaa manant kuma tahay. مرنا waxay ka waramaan alhuwiya alijtimaaciya, bulsho waxay kaga soocantay bulshooyinka kale. dad meel degaama degaan leh ama mabaadi' leh maxay kaga gedisan yihiin dunida inteeda kale, bulsho ahaan, qoomiyad ahaan, dhaqan ahaan, diin ahaan, luqa ahaan, akhlaaq ahaan, values ahaan iyo qiyamka ay leeyihiin maxay kaga soocan yihiin dunida inteeda kale. sidaa ogeed bay ummad waliba waxay aad uga fakartaa oo la yidhaahdaa manaahijta tacliimiga waxyaabahay u unkantay ka mid ah. cilmiga qura uma unkane waxay u unkantay labaad oo loo sameeyey inay bulshada huwiyadeeda ilaaliso, bulshada dadnimadeeda iyo aqoonsigeeda iyo waxay dunida gaar kaga tahay inay u ilaaliso si ay uma jirto u noqoto. marka ziyaadatul الوعي بالذات إن لكبعيه dadku inuu daatadiisa garan karo, inuu garan karo wuxuu bulshaadka kale kaga soocan yahay. marka kaasi waa huwiyat almuslim. zaman alcawlama markaynu u jeedno ama casri alcawlama la yidhaahdo, cawlamadu waa erayadan cusub ee dib laga isticmaalay, waa globalization. globalization kaasi waxay ku sheegaan inuu yahay وحرية المال والبضائع والناس والأفكار بين هذا. حرية حركة المال وإن دونيد العقد تصعن كرته واللي يسوق بين كراء أنا قيود حريسة شيرين بضائع دي برودكشن كبني آدم قصاص صارين اللي يسوق بين كراء آدنا هلفتي سوين يسوق بكراء أفكارتنا إن يسوق بكرته. si kale haddaynu u tilmaamno waxay u fakarayaan in xuduudda laga tallaabo, inay lunto waxaan la yidhaahdo sovereignty-ga ama siyaadaadka wadannadu leeyihin. taa macnaheedu waxa weeyaan dunidoo dhan in la isu furo, inkastoo bay leeyihiin inay si cadaalada isugu furmin. waayo dunida badhna duwalka waa maraakisti ama waa santarka dunida laga xukumo, dadna waa atraafta dacallada preferals waa hareeraha dadka degan. waxaan xorriyadda la siiyey waxaan odhan karnaa xaqiiqatan waa dadka centerka degan inay dunida say doonaan u isticmaali karaan.
أما dadka preferalska hareeraha degani iyaga aragtiyahooda waa la tashwiihiyaa oo cilaamka dunida dad baa gacanta ku haya badaa'icdooda waa la mamnuucaa productionka ay soo saaraan oo qaanuun iyo macaayiir ay dejisteen iyo nidaamka suuqa xorta ah intuba ducafada uma naxdo waa ka soo horjeeda sida awgeed bini aadamka socodkiisa qawaaniin alhijra alintiqaa'iya bay yidhaahdaan waxaa lagu xukumaa qawaaniinta loo dejistay soo gallootiga oo ah mid doorasho leh maalan afrika sanad walba waxay dhahaan 20,000 oo aqoon-yahan bay ka qaataan hadhowna aqoon-yahanada afrika ay u baahan tahay inta dib waxoogaa loogu keenaa 4 bilyan sanad kasta lagaga qaadaa kuwadana bilaash baa lagu qaataa waa qawaaniin saarim oo aan la ogolayn cid waliba inay soo gasho iyagu markaa globalizationku iyagu dan u yahay dhankooda marka laga eego badaa'icdooda maalkooda dadkooda iyo afkaartooduba dunida way maanshaysay ama dunida inta kale waa marti haddaba haddaynu nidhaahno calaaqaadka aadanaha ka dhaxeeya wuxuu ku fiicnaa alinfitaax walmusaawaa in laysuna furan yahay nawcin maa is-ixtiraam iyo sinaan wuxuun ahina inay jiraan oo bini aadamku manaaficda isku weydaarsado iyagu waxay noogu dhawaaqayaan waxaa loo baahan yahay mujtamacaad munfatixa oo liberal ah oo multiculturalism aaminsan dad furan oo iyaga agtooda alxurriya alfardiya ama identityga qofku uu yeelanayo suu u dhaqmaya ka muhiimsan ka bulshadu ay leedahay haddaan si kale u tilmaamana dunida maanta inta xoogga badan ayaa khadito oo dejisa nidaamka tacliimiga dadka kale wuu qallitaa systemkoodii iclaamkana iyaga gacanta ku haya qaanuunka caalamigaana iyagaa dejiya international looga la sheegayo adigu waxba kuma lihid qolaa dejisa adigu waa lagugu xukumaa waxaan odhan karaa nidaamu alxayaat oo dhan fi lcaalam qolaa marti loo yahy aqaliyadabana yidhaahdeen ama minority groupiska tira ahaan minority maaha laakiin technologically ama dhaqaale ama xoog ayay u bixiyeen dunida saddexaad xataa labaad maaha dunidaa saddexaad iyada waxa saaran bay yidhaahdaan laba miduun adawabaan inay milanto oo ka mid noqoto laakiin waa milan lagu isgumaysanayo ama waxaa ciddii awoodda ay ku dadaalaysaa alindimaaj maca xifdi alhawiya in bini aadamka loona furmo dadnimadaadana la ilaashado haddaba haddaynu cinwaanka sare sidaa u sharaxno hawiyat almuslim fi zaman alcawlama dunida ay isu furantay muslimku siduu u ilaashan karaa jiritaankiisa dadnimadiisa diinkiisa iyo caqiidadiisa iyo wuxuu rumaysan yahay valueskiisu aaminsan yahay awal waxay odhan jireen alinsaanu ibnu bi'ati bini aadamku waa environmentka uu ku koro bay odhan jireen laakiin inkastoo environmentku ama bii'adu ama deegaanku qofka bini aadamka uu raad badan ku leeyahay koristiisa iyo noloshiisaba haddana bii'ada dunidu bay yidhahdaan waa laba nooc waa bii'a tabiiciya oo tan naturalka ah tan deegaankaad ku nooshahay climatekiisa wuxuu dhaqdo noloshiisa qaabka looga nooliyey kaa tabiiciga ilaahay dadka u qaybiyeen ninba dunida meel ka degan yahay iyo albii'a alxadariya bay yidhaahdaan deegaanka civilizationku ama tamadunku ama madaniyadu ay leedahay oo ah bay yidhaahdaan cultureka bini aadamku uu leeyahay diimuhu rumaysan yahay afka uu ku hadlayo dhaqamada iyo caadaadka bulsheed qaab tacliimeedka wasaa'ilkan iclaamiga wax la isku gaadhsiiyo intaasi waa inta
transformationka ku samaysa qofka bini aadamka ama beddesha asal ahaan qofka bini aadamkii waa xor ilaahay ba subxaanahu wa tacaala xorriyad siiyey xataa rumaynta alle ayaa xorriyad loo siiyey inuu doorto alle iyo inuu diido laakiin xorriyadda abaalmarkeeduun inuu yeelan doono marka waa xor haddana waa mas-uulun can tasarufaati wa axwaali waxaa la weydiinayaa habdhaqankiisa iyo waxa uu sameeyo bii'ada uu degan yahayna wuxuu ka soo dhimbiil qaataa siduu u fakerayo iyo dhaqankiisa iyo bulshadiisa si uu ugu xidhan yahay calaa'iqda ijtimaaciga ee bulshadu ay leedahay iyo waxa allaaliya waxa noloshiisa ka mid ah waxaana yidhaahdaan markay isweydiinayaan oo miyaad tahay bay yidhaahdaan waxaad aragto iyo waxaad cunto iyo waxaad maqasho mooyaane ma wax kala tahay bay yidhaahdaan waayo qofka bini aadamka ah waxaan ku hareeraysan baa noloshiisa raadka ugu weyn ku leh cuquushu waxay taxliilisaa waxa ay siiso xawaasta dabaddu waxay dhegtu maqasho waxay ishu aragto waxaad cunto waxaas baa jidh ahaan aad ku kortaa oo noloshaada caafimaad saamayn weyn ku leh sidaad u fakeraysana saamayn weyn ku leh ولذلك بي واحد عن قف ولي كيف كيس جارك قد كيس جارك أبو كجرا ومضوه مركا سأي أيضا تتجو ضوي العشادان أي جوريك يدكسك يسكولك يشارك يشارع عن أجار كاجا يمساجدك يوسائل التعليمك يوسائل الإعلامك ينظامك الدولة النمو وحاصر لما وحي يقول لسين أمتك استبا inay u ilaaliso huwiyada ay leedahay su'aashu markaa waxay tahay haddaba innagu sidee baynu huwiyadeenna u ilaashan karnaa dadnimadeenna iyo diinkeenna iyo magaceenna saynu ilaashan karnaa waa haddii aynu alwacyu bidaat leedahay haddaynu is ognahay kaynu nahay isgaranayno u khatidno mustaqbalka soo socda waxaynu noqon lahayn u diyaar garowno dagaalka dunidu isku haysa aqoonsiga ah in aynu noqon karno dad mabaadi'dooda iyo dhaqankooda iyo diintooda iyo afkooda la ictiraafi karo identitygu waxay yidhaahdaan waa caqaa'idda dadku haysto mabaadi'da ay ku dhaqmaan bulsho ama ummadi khasaa'ista gaara ay leedahay ummadaha kale kaga soocan tahay innaga ka umma ahaan إلهي وحين لا كنتم خير أمة أخرجت للناس كأمة إسلامية وحاتهين دتك كوي خير بدنا إلهي دتك وصاصاري دتك السماها فرتان حماهنا وكربتان إلهي نوار رميسان خير يدا ومدتني وحي كسو برقانيسا وكدالنا إياه gooniisutaageeda dhaqameed qaanuuneed shareeceed diimeed caqiido akhlaaqeed walidalik baa markay mas'aladu joogto identity ma aha waxa bini aadamku kala qaato ilaahay wuxuu leeyahay lakum diinukum waliya diin waxaad ku tidhaahdaa dadka diintiina leediin waliba culimmadu waxay dhahdaan addiinu fi hada almawqic waa dhaqan oo dhan kiina leedinana kaayagaanu haysanaa waxa ilaahay inoo tilmaamaya keenu inuu dhammaystiran yahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina waxaynu u baahannahay markaa qofka mu'minka ahi ama ummadda islaamka inay caqiidadeeda xejisato intimaa u yeelato bini aadamku waa grouping inuu groupka ka tirsanaado ku faano waxa uu haysto ixtiraamo qiyamka ama valueska ay leedahay xadaaradiisu iyo thaqaafadiisu kor u muujiyo shacaa'irta iyo astaamaha diimeeda lagu yaqaano xejisto waxa uu rumaysan yahay dareemo tamayuska ama socnaanta kuwa kale ka soocan yahay fardan wa jamaacatan
كوكعه إنه مدى أنت كلا قارسيو الرسالة واجب التبليغ دينت إلهي سبحانه وتعالى وسور ديبي مرخاتنا كل نقضة ومدى ما أنت واحد نقول الله هذا بقى عالم يصفر مي قارضة دون دور من يصفر مين وعالم أفكار عصوبي وديمها لقسي حروبة يا إيتاغنتي وحلو أركا قضايات كفاليوز كي أخلاقيات كويني نسبيهين أو البني آدم كو حرمي السنة قيم كو عالمي هينو ثابت نية وحسوغن نية هي عالمي نية كوني وحي كنا واقعيا ووح نسبية ما هو وحي يونيفرسالة وأركتيكو كورية ميلا أما حاضنات اللادينية وألا أدري وألا أبالي بين هذا ميلا أن دينت الله هيسنين وما أنت الدنيا وحا ضبضا دلين يرد يوروب جوجتا waxay yiraahdaan xisaayadada dambe boqolkiiba 70 waxba ma rumaysna da'yarka 29 jirka yar da'yarka 29 jirka yar ilaah ma rumaysna ma waxba ma rumaysna way atheism dadkan atheism ka cad haysanina waxay haystaan bay yiraahdaan abatheism ku ولا أبالي والسيدي أن إله جرين بأنولي يعني مسألة دا فيلسوفيكالي كمر من مايو لكن دقن كيس يقاب كأنولي هاي وقاب أن ديني كتشرين قاركود وأغنوستيكس ولا أدري كوي هورا وحي لها إله مجرى كوري وحي لها إنو جري إنا نجرين بموغن إنو جرينا قرن مينو إنا نجرين قرن مينو قاركود واسكبتيس ومتشككين قاركود وحيا مسيين وفيلسوفرس كودي وين كم دي بانثيسم ووحدة الوجود إلهي كون كونس كمديهين أفكار تاني ولقيت بدوني دا ويسو جوجتي مع عصباء لكن واجه هورا وحيا هانجرتي قوبها فلسفة دايو داديو فيلسوف الرأيو dad farakutir siyaahi waxay rumaysan laakiin maanta waxay taa kaga gadisantay afkaartu ma cusba laakiin maanta waxay isu bedeshay inay diin caalamiya laga dhigo waxay tii hore kaga gadisantay awalba falsafada waa lagu dhigan jiray taariikhul adyaana waa lagu arki jiray taariikhul falsafana waa lagu arki jiray laakiin waxay hadda kaga gadisantay waxa loo bedelay umamkoo dhan in laga simo وحتى الله بلابين عرورتا يرير لغو تربيه إن بوكس لو قرأ أول بوقت دي فلسفة دا لو قرشية دادك أهل العلم قاية دادك سيني دوضاها قلان هذا وحا لغو تلقلين لغو تربيه يا عرورتا بوقاك عرور لو قرأي ومثلا أنا كهارس بوقا دا أنا أتساءل أحبار سويدينية وإلحاد أيلين عرورتا لغو تلقلين وحي قادين أي قرآن وحي مكوية قانين دوميس بوكس والله الساينس كأول واحد يقول جرين كتب الأغبياء وحلا ينادى يعني علوم تبوغاك فضايديسة وفني كستو كوكو أتكادا هذا دوميس بوكس يبسطه سي بسيطة الله شرح يا مركي بوات فهميسه مركا واحد كتب الأغبياء وقوليها أكاديميك الرباين علوم تشلعيان أي كتبتن أضغط أنت لقيت جايبها كتابة وحلا قري سفضت وهذا إمكاناتك كله فتو دمس بوكسك فني قاعد فهمي كيري وإذا واحد لسه صدق حفر شنبوك وإذا هذا غبية ضل لوجو تلقى لي وهذا مركب فهم إيش دبا ترى واحد قرين The Young Atheist Handbook واحد مرتد أسأل كيسي هراها بنغلاديش ألوم شاها أيا قرين تكس بوك عيالك اللديتك عيال كان إلهي الربع سنين بالا ربا تكس بوك لو قرأي حيسان كران مركاسا Humanist Association كان إنجليز BHA كوانا يلاهدان نا انتي بديين أي وحلالية وح سكندري سكول كويا له
ingiriiska intiisa badan England iyo Wales Scottishka marka laga yimaado inta kale waxa ku yaala ayaa loo wada qaybiyay waa caruurta oo dacwa loo furayo ah in la gaarsiiyo diin la'aanta markii ay dhacday 11 September wixii ka dambeeyay dawladda badani waxay u janjeersadeen inay diimaha la dagaalamaan saadaradeed barnaamijta idaaciga ee fadaaga ka baxda ee dunida oo dhan loo iclaamiyo iyo waraysiyada jaraa'idku qaadaan iyo waxa loo badiyay dad yawa ku caanbaxay atheismka qoyaanada jaamacaadka joogay ee waxaan rumaysnaa ayaa loo sameeyay talmiic in la soo caanbixiyo dunidu barato maalin walba usbuuciiba mar in waraysi laga qaado mid iyaga ka mid ah oo barnaamijta ugu caansan markaasi uu ka soo baxo intay soo dhaafiyeen ayay urur diimeed noqdeen hadda urur diimeed Atheist Alliance baa la yidhaahdaa Atheist Alliance International sanadkiiba mar bay isugu yimaadeen atheiska caalamka oo dhami magaalooyinka waaweyn ee dunida mid ka mid ah bale kursi baa laga siiyay goobaha diinta xiwaarul adyaankan ay sheegaanba kursi laga siiyay bale ingiriiska maanta waxay ku leeyihiin kiniisado diin laawayaasha waa kiniisadada non religious churches bay yidhaahdaan kiniisadaha diin laawayaasha oo khawaar ruuxiya iska haya markaa meel intay isugu yimaadaan ayaa waxoogaa heesa loo saaraa la boodboodsiiyaa sidii intii ay kiniisadu samayn jirtay maalinta axad oo kale wax u dhigma in loo sameeyo oo waxa la yidhaahdaa waa non religious churcheska waxay leeyihiin iclaamaad dadka loogu yeedhayo maalan basaska London dhex mara baskan cad ee labada dabaqaysa saarka ah waxay u sameeyeen iclaanaad dhinaca kaga dhigsan oo iyagu lacagtiisa bixiyeen oo la yidhaahdo there is probably no God stop warning and enjoy your life bay yidhahdaan hubanti ilaah ma jiro warwarka jooji oo noloshaada ku raaxayso ayaa dhinaca kaga qoran baska dadku fuulo yani waa diin la faafinayo waxaan weedhaha kan idinku tilmaamaya waxa weeyaan caalamka duulaan xoogan baa ka jira oo diin ah ilhaadi oo la faafinayo oo da'yarka iyo dadka akademiga iyo dadka soo socda lagu faafinayo insaankuna asliyan حاجة الانتماء كما مارمو إنه عد كتير سنادو لكن سؤال السويدين تلو حويان دتك مسلمين تنتي فيجيين انتبا دتكو دا أكاديمي كامر دلنيرو دا جامعات كدكتا أي أصول دينهم سوين انتبا دين تو دا كجاهليين أما سي أي أقونو لي دين تو هورتو وقو ماها dhaqamadan reeru iska haysteen iyo meelaha kan inta ma aha inta dooda lagu galo ama mabaadiida lagu xijiyo ama shakiga la iskaga ilaaliyo waxaad u baahan tahay aqoontaada inaad si dhaba u baratid waxaynu soo wada haysanaa inaynu diinta naqaano laakiin way yartay waxaynu ka naqaanaa kitaabullaahi waa qaara kabiira masaaxat almuktashafa عندنا aad bay u yartay sida awgeed أسئلة الكبرى وين نجاوبها لا فلسف كيف بني آدم كوكو مرمى حقان كايني حقان كصعدة محانا حي دوني ده محان كقبانية وسؤالها أي فلسفة دورنا بكو ريكتو علماء دا عقيدة الإله كور ربعنا بكو ريقان علماء نفسي انتو دا بدنا يكو ريقان علماء الاجتماع يكو ريقان حقوقيين تو يكو ريقان إن لحديدة كماطي marka darsigu wuxuu ku saabsan yahay inaan baranno inaan tahay insaan muslima oo Soomaaliyeed waa leeyers kala hooseeya leeyerka ugu sarreeya waxaan leenahay insaan baan nahay xadaaradan dambe ama madba aan idin sheegay bini aadamka insaannimada uu ka saaraya dad akhridaan kutubtan ka warramaysa usul al-akhlaaq iyo mowqif al-malaaxida iyo waxay ka taagan yihiin waa inay values kala dagaalamayaan bini aadamkuna values ku kaga soocan yahay xoolaha hadduu values ku lumo مثلا values ka ku saabsan guurku hadduu lumo oo la yiraahdo dadku sida xooluhu mushaac yahay ama dadka iyo xoolaha isguursan kara
sida filosofkooda akhlaaqda waa falsafat al-akhlaaq professorka dhiga ayaa taa rumaysan dadkii xoolaa in la isku daro marka hadduu valuesku dhinmo la burburiyo bini aadamnimada lafteeda burburaysa dadweynaha diimaha rumaysani waxay isku raacsiisan yihiin in valueska bini aadamnimada la ilaaliyo kow markaa waxaan leenahay insaan baan ahay insaannimadii waa laga soo horjeedaa dad waxaa u dagaalamaysaa inaad bini aadam noqoto oo valueskii aadamuhu uu hidiya dhaqan u lahaa ilaa nebi aadam ka soo bilow bini aadamku nin iyo gabadh buu ahaa usro kale ma jirin maanta si qaanuunka caalamiga waxa lagu daray usradu inay intaa ka badantay usrada waxa la yidhaahdaa maxaa reer la yidhaahdaa nebi aadam laga soo bilaabay ilaa hadda bini aadamku wuxuu yaqaanay reer in la yidhaahdo maxay nin iyo gabadh socanka maaha haddase united nationku wuxuu qoray iyo waxa dunida lagu faafinayo iyo dowlado badan oo dunida ka mid ah waxay qirteen waxa weeyaan reerku inuu intaa ka badan yahay laba nin baa reera laba dumaraa reera dad iyo xoolaa reera wixii la doonaa reera hadda wixii la doonaa reera idan waa valuegii bini aadamnimada oo laga tegay diin weli maynan ka hadal waa valuegii insaaniga ahaa ee abin can jaddin aadamaha inta taariikhdiisa la haya lagu hayay oo la tilmaamayo inuu qaldan yahay marka waxaan leenahay insaannimo bini aadamnimo identity abaa dunidu u dagaalamaysa hadda mar labaad gruubka insaannimada aqbalay waxaan kaga gedisanay inaanu muslimnay inaan ilaah rumaysannay oo aakhiro rumaysannay oo rusul rumaysannay oo kutub rumaysannay oo alqadaa walqadar rumaysannay kuwa rumayntooduna adilla caqliya iyo cilmiya bay u baahan yihiin awal waxaad ku noolayd meel dadka kula jooga oo dham islaam yihiin waxaad ku noolayd meel su-aasha ah ilaahay ma jira mise ma jiraan cidiba isweydiin ee dadku ku wada qanacsay in ilaahay jiro meelaan su-aasha ah la isweydiin ilaahay rusul ma soo diraa mise ma soo diro in rusul ilaahay soo diri jiray ay jirto baad rumaysnay meel baad ku noolayd aakhiro aanay questionable ahayn meel baad ku noolayd ahayd maxay kutubta in ilaahay soo diray iminka kulluha calaamatu su-aal baa taagan waxaana taaganaya dunida isu furantay iyo dadyawga mabaadi'dan qaatay oo diin ah oo faafinaya oo idaacada leh oo tv leh oo academic schools leh oo wax walba leh oo dawlado waaweynina ay taageerayaan waayo qaybaha hore dee dawladaha yurub qaybo ka mida baa madaxdu aanay ahayn kuwa bini aadamka ka baxay ay yihiin aan sheegayo valueska bini aadamka kuwa dhaafay bay ka mid yihiin madax badan madaxdaasi waxay qaateen wadannada qaarkood in lagu qasbo tacliinta laga soo bilaabo kindergartenka ilmaha yare 4 jirka ah baa loo bilaabaya wadannada badh in usradii la bedelay in la dhigo oo la yidhaahdo ardaydan yare kalaaska soo galay kana laba aabuu leeyahay kana laba hooyuu leeyahay kana aabiyo hooyuu leeyahay markaa dadku inay caadi tahay oo ilmuhu la soo qabsado isagoo jooga kindergartenka aan iskuulba soo gaadhin waxaan leenahay marka hadda dhalinyaro badan baa jiro ka murma meelaha kan ee facebookyada iyo waxoogaaga kan soomaaliduna waa dad warka aad isu gaadhgaadhsiiya weliba waa dad xataa hadduu shakiyo shakiguu faafinaya war bal horta meel gaadho markaad waxun ku qanacdo faafi markuu shakiyo shakiguu faafinaya waxaan leenahay marka islaamnimadeennu waa inay noqotaa islaamnimo cilmi ku salaysan kitaabka qur'aana arkaanul iimaanka aan sheegaynoo dhan adilo caqliyuu ku sugaya idinku waxaa u haysataan ama dadka badh waxay isaga haystaan adilo samciya inuu ku sugayo war qur-aanka dad gaalaa baa lagula hadlayay qur-aanku markuu soo degayay muslim qudha lamuu hadlayne gaal baa lala hadlayay qur-aankan baana islaaminayo lagula hadlaya isagaanay ku qorantay markaa daliilka caqliga ahi daliilka caqliga ee qofka lagula hadlaya isaga ku yaallay laakiin wuxuu inooga baahan yahay baxthi iyo baadhitaan waxaan leenahay markaa insaan muslima
والصومالية صوماليا محانو لهي صومالي نمضو وكالجر يأف يمكن واحد مودا أفكا صومالي قوينو سير لمن يسي صعوده إني نوقع ظني وحيابا يروان بورين إني نوح وين مود نو أففك كلينا أفف وين يهين أففك أفكي علمي لغو قرانا وأف علمية دو نقضة أفكي جهلي لغو قرانا أف جهلية دو نقضة إذا أفكينا علمك قرطانا أف علمي صباحية هديو جهلي لغو قرانا أف جهلية بصباحية سأوقدو حلنا هاي عقيدة هاي سنة كونك أما يونيفيرس كاركتي كاسينيس قفك بني آدم كاركتي كاسينيس نولش أركتي كاسينيس meesha lagu dambayn doono aragti ka siinaysa taariikhda aadanaha aragti ka siinaysa mustaqbalka aadanaha iyo xaq uu socdana aragti ka siinaysa ولذلك بقى إلهي النبي وحكوا لي عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين واعتر هذا صلاة ديدا هي نسكي عبادة ديدا جورة عيقة نول الشيء دي جيري ديدا لله رب العالمين عقيدة مركا والركن كواد قفك أيضا تتجيس شيكتا عقيدة وحا كردم بالما وحلا إذا الولاء والبراء والشيء يعد اسكو بهدتين مركي باب كان شوكتو يعد كلا بهدتين شيء يا انتماء وعدو كتر سنة هي يعد أنا كتر سنين معتقدكم مركا بالشكسته يومت كسته وحو أصل أيه هي أيضاً تتجاه سطح هدو معتقد الحادية هنا أيضاً تتجاه هدو عقيدة إلهي الرميسية هنا أيضاً تتجاه سلوية لغضو ثقافة هذا أصل الطهي وحاد نقن يقابنا ولولات سيتو سوقت وحن لنا وين نكلا قرنا محبنا آدم كوا داقه أو كلا قاطع حنسل وداقين ضدك أنا هيسنين موازين توحلقوا قياسا وحي مودانكي كالتكنولوجي سرية وحوال بينو كسرية مردو التكنولوجي سرية هي إنه وحوال بهايستو وحنا كبتشرا تكنولوجي قلنا لشو فضايدية قفك بني آدم كان ولا شيء فضيدية لكن قفك بني آدم كان سيدو فكريه يوح الرميسيني هي قلبي يسوحه كتير وحركة مطره ولذلك ضدك الشباب ثقافة الغالب بيقاطع إنك حوق بدن للثقافة دي سيسك قاطع لكن ضدك موازين تهيستا صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بادية كوكورين ميلان وحبا أولين بيشوغن علم هرم ما يهيسنين لكن عقيدية الدين بي آمنين عقيدية الدين تسوحي كنكتي إن يسوء أركان أساتذة العالم إيه وهي رسالة السماء وحي السماء أقونت وحلا إلى ولا بوحا ويدا هذا وأقونت عركة كسود دكتي أنبياء الله صلى الله يا قونت كسابسن كون كان دراسين تيس أما بني آدم هلا دراسية أما مادة هلا دراسية كون كدراسين تيس تصمد كتم دقف مله إن هذا دو سقل دنو فهمت مو يعني تدوني ذا كتم داسه وتراي أنيرا وواحد تجابي ولا قلدم ولا تجابي ولا صحة واحد دوني ذا آدنه سميا وحلا كلا نحله oo midba bay ku dul dhisantay haddii kuwa hore la waayi lahaa kuwan dambena ma joogeen yani technology-ga Yurub ma jireen haddaanay xadaaradii muslimiintu soo marin xadaarada muslimiintu wixii practicalka ku saabsanaa in badaro ka midi ma jirteen ama way gaabin lahayd haddaanay xadaaradii hore ay soo naqliyeen ka jirin bini aadamku wixii bini aadamkii hore sameeyay wax ku sii dul dhistaa saasaan u socdo laakiin marka ay joogto maxaynu qaadanaynaa maxaynu si ka tegaynaa waynaynu kala garanaa yes waa qaadanaynaa wixii qadiya cilmiya ah xaqaa'iq cilmiya wixii noqda laakiin qaadan mayno valueska iyo dhaqamada khilaafsan kitaabka iyo sunnaan haysanno munfatix waan nahay
وتجارب بني آدم كوحي فايدة لو قادنا، لكن منبطحين منهن ودتك اسكما دبصوا عنه، مقلدين ومنهن مركي تمادو في باب العقائد والتقاليد والأحكام مركي شوكتو، هي قوانين مركي شوكتو. ولذلك با إلهي القرآن كوحي نوت المامية آدنوه إنو كلا قد السنان كروه وانا نبحين. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شعاركم ووحن لقاطه سلوغن اسك بني آدم قاطه سلوغن اسك محل لو قاطه للتميز. مثلا أسكرتني إن لا جوجتا يمكن دريس كلا يستاته دريس كا مسكحدا إنه وحو شيغيا markaad qof دريس ka istata aragto waxaad garanaysaa inuu yahay maxay ciidan inuu yahay baad garanaysaa. khamiiskan iyo intaan aan sita markaad aragto innaga culture-keena marka loo eego markiiba waxa kugu soo dhacaysa kani waa wadaad, yani maradan baa sheegaysaa, maradan baa waxay ka tarjumaysaa dhaqan. ولذلك waxay yidhaahdaan libaasku waa madhar min madaahir alhuwiya baa la yidhaha caqiidada ka kaale. marada la xidhaa waxay ka tarjuntaa bini aadamka huwiyadiisa identitygiisa baadisoociisa iyo aqoonsigiisa ayay ka tarjuntaa. مثلا qofka muslimka ah maruu leeyahay marada qofka muslimka xidhaa waa inay saatir noqotaa, waa maro jirka asturta, waa maro طاهرة والنجاسة لقى إلالية ومرأة أنيق وقفكو كحر قوريو إن الله جميل يحب الجمال. لكن مرض مركي انت أصوصي فوضي يالتو أشكالك كسيد دنبايا ثقافات قومية ويان. وحضرك دونتا مركا حجاب باكستانية هي حجاب صومالية هي حجاب عربة هي حجاب وحيبا وحجابة انت اللي الربي ويسمايا. لكن كاني identity islaamnimo waa wada haystaan dhammaantood waxayse ku kala gedisan yihiin maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha qowmiyo oo iyaguna in badan ku salaysan climate-ka. مثلا dadka dhulka qaboobaa degan dee hugoodu waa dhar adag, dhulka dadka qaboobaa degan hugoodu kulaylaa degan hugoodu caddaan buu u badan yahay. waxaynu markaa leenahay عمامة سيدا الله حدين سيدا يمن تادو حدتين تساع عمان تادو حدتين سالحية دينين تادو حدتا بشكل ما. لكن وحيلين مرضو ومظهر أما ومقال لدى أيضا تتيجا كمدا سكال هدانو تلمامو وشار ربيدا دا وأستان هرديل هدات سوق شوي مكود عنا يستر هذا الدلبو ريستورانت واحد يجي سقف دريس كارسته وهي علامة إن مرة دلعسنو بودي ومغيانو لا أيضا تتكلم بتليسا مركا أيضا تتكي سلام لماذا هوا كسي صعطة وعكلات بتليسا. قتل النبي محمد وحولي تما بدناها حيرنا عليه الصلاة والسلام بدناها الله هدنا غير باديه هني الصوماليات ما دام أن قفيدا يو حاسب بدنين بيا بدنا وحلقهم ما يداشرين عرفت تما ويكحيري شري لكن هدنا إن كيا إن تصل له كلا قرتابي وسبي شري إن أنت تعرف فود يربى لور بيشرو وفود ليبى لور يشري إن كنا دور بالله سبي شري قلاد غير مجال كي مركا خير الدبدة كي بدو حد يشري مركا إنه دور يعني وقلادي هود ككتمية ولو حليه تمي إما كان دور كي بحر رقم هودي يعني شالي تدور روحها عاي أو وحلو أركي إن يربى دي كي موليتا ما حد دور كي شالي تا عايدا هكذا جاي مانتا وأيضا تتجي نلوميننا شقاها وشقا فضي وحاد سيوين ماها إن كستو دينتك سهر جيدو لكن وأستام بو وحيي دادك حن على مدى قاطان قلبيتك الدقاء قار كميدي على مدى هاي مريا هاي وحا هدا دركتو وحا استانويي جروب ايديولوجي آمنسان وهذا الكسادات صوماليادو مريهودو نوعي وردونا قورمت كوان كبيرتا ما بقوغا لكن وان مادام اي قلبيتك كتيمي حسكو دايا ينقاطو نبو عليه الصلاة والسلام وحليه لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم أو لدخلتموه
قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن نبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية كويدين كهرية ودوين كودي بالراعسان تاكا تاكي يردودون باو راعي دونتان حتى هدي قد مسلو قلي قلان وكذا بقلي دونتان قد مسلو قلي ما مساعة قلي ما همال قرح له ما همال وناق له لكن نبي مثال وحوق بحيي سيد الله قادن دونا وحن معنا نولش كلهين قد مسلو قلي لقال هذا وح معنا السمين يا ماها ما كان دركتم مد مرية شيء حنسيته شيخ عبد الرشيد على الصوفية محاضرة آخر ويل سوماليا يوروب كا سروال شيء حنسيته يسوتها هاي وما كان ربينه وحويديه رسول حلو ولا الله يلي ترى سؤال شيء كجوابي ولا الكين مردي سوي دلع سنته وعن واحد سقود دربوا السروال في عنا ورقدناه أرنتي وعقلك الصومالي يسوي شيء جيو وايو مرض هذه أنت بودتك صود الدلاع سو عورض هذا موش سو إن هذا دنا كحرقوتا أيضا تتجاج والله كريسي ويا مرض الدلاع سنقفوا قادم كرا هلك كان بركين يشوفونه dadka waalan astaan baynu ku naqaanaa haddaad aragto maryo dildilacsan nin sita oo timar raama leh timihiisu raamaysteen oo meel fadhiya waxaad garanaysaa nin maanka lagaga jira inuu yahay waxaanad u arkaysaa waxun laakiin markaad aydhanta tiga lumiso ee aad wax walba raacayso tv-gu maad ka arkaysaa mid raama leh ومريا دلدلعصدي وبودبودي للي وحدك كبدا عكتا ما هو هيساقي هبل ها ما هو بوب مارلي ما هو كان ومايكل وهو غريبة ده انتي بعد أنكو ديانس غريبة مقالة انتي ده بتنني من دليرابا وحوغا واخريي مركا وقتي مايكل جاكسون ودوني ده على هوسيتي هسها مايكل جاكسون باو حصو حدي سروال بوددية أنت تنشرك كبلغ بلغسانو أدو بلادن عنقا وكان كروغا قادن وسنة وافقسانو هدو انتنا إنو وطولان لحين ملا دوني دون أمريكا وحي قادن ترتي سروال نيرو دولك جيتمية سروال كي صاحب داي كاسو أركياني قو إيجيو شيخ واموضا مع السنة بويري شيخ واموضا مركي رسولنا ده لما قادرين لكن مركم مايكل حداي أي نقطة موضة مع السنة يعني وحنا قدام لي هاي قضية الشرطة وحيتها هاي هو يدقفك هدول لمية سيف ضدبو مركاسي وأم المية وأدم الميسة هو يدن ربنا وام حياد لميسي والاعتزاز بدينك وبعقيدتك وبمبادئك وبالكتاب والسنة وإن تكف أنته جستد إن مسلم تهي إلهي محولي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا كور في عمبا إلهي إلي كدتك الدين توقيا له إيساقنا دقاك ونكسن كفانا كبير له وروه ينقو مسلم كان كميدا هيكون واقعيا يعتز بديني اعتزاز بنادم قلبك وكتشبه هدي مركاسي أيضا تتقاق ولموه عقائدي أخلاقياتك فاليوسك والدين تادي الدقن كاجي الثقافة تادي أفكاجي هذا اللونطو دمير دار راعد بعد نورسا مركا وحاضرك تبعد كل ضيطات ذاك الدون تامركا سوء البحر ما ضوها يسطا أو كل هو مودرنايزيشن وحداثة ومحل إذا عصرانية هذا وقت قال لما سعتي وذا واحد شوكتا قرني أفريقيا طبنات بعض تقول نوش قرني أفريقيا طبنات عيب ما وحى عيبه dadku inuu dadnimadiiyo bini'aadamnimada ka lumo qarniga 14aad hortiina dad fiican baa noolaan jiray kuwa dambana dad fiican baa zamanku maaha ee waa bini'aadamka iyo values ku haysto bini'aadamka iyo values ka haysto weeyaan caalamku maanta wuxuu xidhan yahay dad badan inay dadka diinta ka saaraan ilaahayna quraankiisa wuxuu ku leeyahay wadda kathiirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di iimanikum kuffara in badan oo ahlu kitaabka ka mid ah waxay jecel yihiin diintiina inay idinka saaraan oo gaala idinka dhigaan xasadan min cindi anfusihim laakiin imka iyagiina waa laga saarayba nin sheekho Soomaaliyeed oo
jaamacadka reer galbeedka joogaa wuxuu yidhi jaamacadda markaan soo galo oday kristanaa jooga buu yidhi odaygaa sidaan walaalanaan laabtaysa saaraa buu yidhi waayo inta kale brofesoradu ilaahayba ma rumaysna buu yidhi marka kanu yani kan bay isdhawaysteen markuu u arkay dadkii kale halka ay sii marayaan ayuha alaxiba waxaan leenahay waxaynu u baahannahay dhaqankeennii afkeennii caqiidadeennii diinteennii inaynu ilaalinno inaynu da'yarteenna yaryar ku soo rabayno luqmaan inankiisii markuu la telinayay wuxuu uga bilaabay ilaahay ninka luqmaan la yidhaahdo oo xikmad lagu tilmaamay oo laynoo soo naqliyey xikmaddaa wax ka mid oo ah ilmihiisii uu la telinayey ilmihiisa talooyinkuu siiyey 3 shay bay ku koobnaayeen caqiida oo uga bilaabay ilaahay inuu baro inuu cibaadaysto rabbigii caabudo iyo dhaqan fiican inuu dadka kula dhaqmo intaasuu kula telinayay وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله المهيجي يرايو إلهي وشريك يلن سببت وامحي إن الشرك لظلم عظيم شرك هو ظلم وين وعدالة درده وين هذا ما أنت النول حقوق ما مقشان سماها حقوق دا حولها حقوق دا درتا حقوق دا بني آدمك حقوق دا دمرك حقوق دا عرورتا حقوق دا كذا وحقوق دا إلهي كورمية ماركتين بسبب مخلوقاتكم بحقوق لا إلهي حق ماله إلهي بقى حق وين حق يصير وين لعبده سيدا وجد باللقمان وحوجا بلابي المهيسي إنه عقيدة ده الصحة وأشياء جنا حق إلهي إنه يهين لعبده أو أشياء جنا الظلم تو إلهي حق يصل الظلمين أيه إنه شريك يلا ده بتنوع وسيت الماما كم حلا إن لقى بلابه المهير إلهي أنت وحبرش السعطة أصل كوحبرش هذا وين هوية مجتمع على السوق دونيدا وزارة ده وحبرش هذا شقد كوادا يقبتوان محي وأمد هوية دينا إلى السوق كدي بين التعليم كوقدرته أنت بدن جامعات كلا وقلت لك على علمي جي بحثي جي وحبرش هذا رسمي جا tani waa training hoose oo bulsho wax wada akhrido bulshada ka tirsan in la soo saaro ayay tacliintan hoose oo dhami tahay laakiin muhiimadda koowaad ee waxaas oo dhan ka weyn waa inay bulshada identity-geeda ilaaliso ummadaha haddii ay homogeneous group noqdaan dad afkaarta iyo dhaqanka iyo caqaa'idda isku waafaqsan maamulkoodu wuu fududaadaa haddii uu khalkhalku tiro batana ummadda waxa adkaata sida loo maamulo soomaali waxay idin maamulkeedu fududaado laakiin laba mushkilo yaryar oo ay leeyihiin baa weli loo taaglaayay mushkiladda qabiilka ku saabsan iyo mushkiladan faqriga iyo balwadda ishuwan ku saabsan labada mushkiladood soomaalida mushkiladeedu wixii intaa ka sarreeya waa jahli aqoon darro aynu dunida sida wax loo noqdana inaan aqoonin haddii la murmo sida loo xalilana inaan aqoonin xabad mooyaane waxaan u malaynayaa waqtigu inuu iska gabagabayay mala salaadkiina soo dhowiyey waxaan isku dayayaa inaan iska koobo ah dunidu maanta way isu furantay nin walibana ceesaantii buu ceel keenay cid waliba inay afkaarteeda faafisaabay ku tala gashay cid waliba miisaaniyad iyo akademiyo iyo aqoon-yahano iyo waxbay u diyaarsadeen waxooda inay wadaan innaguse waxaad moodaa inaynu dayacannay waa caalamulislaami kow ciddii maamulaysa iyadu waxay rumaysnayd bay la dagaalantaa caalamulislaami dowladaha ka jira waxa koowaad cadowga koowaad diintay u arkaan cadowgooda koowaad diin bay u arkaan aqoon-yahankoodana xabsigay ku hubiyaan oo dadka uguba dunida kale mujrimkaa la xidhaa caalamulislaamigana aqoon-yahankaa la xidhaa inta wax garanaysuunbaa xabsiga lagu guraa ummad mujrimkana sii daysa inta wax garanaysana xidhaa dee waa ummad meelaan dhoweyn ku socota marka waxaan idiin soo jeedinaya waxa weeyaan waddankan aynu degannahay
idinka waa aqoon-yahano dadkii u soo baxayaya haddii idinka identitygiinuba uu labaclabac yahay mustaqbalka waddankani waa madow haddaa idinku dad sugban noqotaan barritaa ummadda inta kalena sugi karaysaa inaad sugantaan waxay u baahan tahay inaad diintiina barataan inaad culturekiina barataan inaad afkiina barataan inaad ku faantaan inferiority complex inaad ka qaadin waxaad rumaysantay wax la qariyo maaha wax la qariyo saxaabi baadiye ka yimi ayaa boqorkii beershiya markuu yidhi maxaa u soo baxdeen wuxuu yidhi waxaan u soo baxnay linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illah allahu ibtacathanaa buu ilaahay baa na soo saara wax naloo soo saaray bini aadamka is addoonsanaya inaanu ka saarro ilaahay dadka addoomma uga dhigno xurriya baanu wadnaa buu leeyahy waa qof mabaadi'du sitay rumaysnaa oo rabay inuu soo bandhigo u dagaalamayay innaguna wixii diinteennu sheegaysayna waa laga xishoonayaaba xagga hoosey ku jiraan inanka akademiga ahi inuu af ingiriisiga iyo ku faanaa buu jecel yahay xogaaga ingiriisiga markuu ku hadlo ama paper af ingiriisi ku qoran markuu soo qoro wuxuu soo arkayaa nin mutacallim oo khatar ah inuu yahay ama haddii la yidhahdo arkaanul islaamka bal ka warran waa iska dee wixii arrintii malcaamadda lagu hayn jiru maad wadaa buu leeyahay wuxuu haystaa malcaamadaha iyo dugsi quraanada iyo meelaha wax lagaga sheekeeyana tahda waa idhanta tigiisii waa wuxuu aadanaha kale kaga socnaa marka waxaan kusoo gebagabaynayaa dad akademiga baa tiin waa inaan aydhanta tigiinu lumin isla markaana waa ina caalanka ah ina aydhanta tiga ummaddan u sugtaan waa ina idinku qaadaan haddaa idinku xambaartaan da'yarta waa idinku dayanaysa haddaase idinku da'yarta lumisaan dee ummadda tan ilaahay bay leedahay subxaana wa tacaala وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين